shirka madasha wadatashiga qaranka ee magaalada Muqdisho ugu socday madaxda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyada dalka ayaa la soo gabagabeeyay munaasabada xiritaanka shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo inta uu shirka socday shir gudoominayay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda madaxda dowlad goboleedyada iyo xubno ka socday beesha caalamka warmurtiyeedka ay isku afkarteen madaxda ee shirka ka soo baxay ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya Daawud Awees maantana ku hayeen duruufaha jira awgeed aysan suuragal ahayn in doorasho la qabto inta ka harsan muddada xilhaynta eelaamaha dowladda ee hadda jira baarlamaanka federaalka iyo madaxweynaha madashu waxay tixgeliyeen inay laga maarmaan tahay muddada gaaban ee kala guurka ah looga gudbo si huwan nabadiino iyo xasiloon aysan dhicin firaaq hay-adeed ku yimaada jiritaanka laamaha dastuuriga ee dowladda federaalka madashu waxay guddoomiseen laga bilaabo taariikhda ay ku dhammaanayso muddada xilhaynta laamaha dowladda ay xilka u seexin doonaan ilaa inta natiijada cusub ee doorashada ee laamaha dastuuriga lagu dhawaaqo sida ku cad jadwalka ay soo saareen guddiga federaalka ee doorashooyinka dadban heer federaal. qodobka labaad dhamaystirka dib u eegista dastuurka madashu waxay si wada jira u bogaadinayaan guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka federaalka guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka ee wasaaradda dastuurka shaqada wanaagsan ee kasoo qabteen dib u eegista dastuurka waxa ay soo jeedinaysaa inay laga maarmaan tahay in laamaha dib u eegista dastuurka ee qabyada ah uu dhammaystiro baarlamaanka tobnaad ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee dhawaan la dooran doono isla markaana uu tixgelin iyo mudnaanta koowaad basiyo qaraarka iyo lifaaqyada uu baarlamaanka sagaalaad ku ansixiyay kalfadhigiisa sideedaad ee sanadkii 2016. qodobka saddexaad adeegsiga nidaamka awood qaybsiga 4.5 oo looga gudbo dhisidda iyo hirgelinta asxaabta siyaasadeed madashu waxay soo dhaweynayaan mabda'a dimuqraadiga ee suura gelinaya in shacbigu helo fursad madaxdiisa si caadil ah ugu kala doorto barnaamijyo siyaasadeed ay ku kala tartamayaan asxaab siyaasadeed taasoo ah dariiqa ugu habboon ee Soomaaliya uga bixi karto nidaamka doorashooyinka ku saleysan 4.5 ee lagu soo meelgaaray sidaa darteed madaxda madasha qaranka waxa ay isku raaceen in la horumariyo dhisidda iyo diiwaangelinta asxaabta siyaasadeed muddo 2 sano gudahood oo ka bilaabata taariikhda la doorto baarlamaanka tobnaad haddaba si arrintan loo hirgeliyo qof kastoo musharax ah oo u tartamaya kuraasta labada aqal ee baarlamaanka federaalka midkood waxaa laga doonayaa inuu saxiixo afti qoraal ah oo ku cadeynayo inuu 2 sano gudahood oo ka bilaabata maalinta la dhaariyo baarlamaanka tobnaad oo xubin ka noqonayo mid ka mid ah asxaabta siyaasadeed ee sharciyan dalka uga samaysmay baarlamaankana ku matali doono xisbigiisa xildhibaanada ku guuleysta doorashooyinka aqalada baarlamaanka ee Soomaaliya ay ka mid noqon doonaan asxaabta siyaasadeed ugu dambeyn 20 Oktoobar 2018. dhanka kale madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka soo xiray ayaa madaxda dowlad goboleedyada iyo xubnihii kale shirka ka qaybgalaya waxa uu mahadceliyay sida ay had iyo jeer ugu shaqeynayaan ka qayb qaadashada iyo wada tashiyada laga sameynayo arrimaha quseeya masiirka ummadda Soomaaliyeed laakiin madashu mar walba waxay u taagan tahay diyaar u tahay in ay tabasha kastoo timaado ay muxuu ahay sida ugu habboon ee suurtagalka ah ee markaas loo xaqiijin kara in ay u xamiso ayadoo marnaba in la taagnaado oo aan hore loo soconin aanay khiyaar furan ama muxuu ahay wax furan aanay ahayn oo aan hore u socono haddii markaa dadka qaarkiis ay ku qanci waayaan ama tabasha ay qabaan sida ugu fiican maanta madashu ay gaari kartay go-aan oo hore loogu soconaya ayay ahayd go-aanada madasha cidna looguma roonaado cidna looguma darnaado waxaa loogu roonaadaa oo keliya maslaxadda Soomaaliya sida ay suurtagalka ku tahay oo maanta ay ku soconayso spiritka go-aanada lagu qaadanayana waxay ahayday maslaxadda Soomaaliya ee maanta ay ku soconay maslaxadda Soomaaliya si ay u socotana waa inaan bixinaa qiimiyay leedahay waxaan qiimo la'aan baxaya ma jiro madasha muddada 9 maalmood ka socotay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ee maanta la soo gabagabeeyay ayaa waxaa la filayaa in dalka ay soo gaaraan musharaxiinta u kala tartamaya xilalka dowladda Deeq Maxamuud Qaasim Somali News TV magaalada Muqdisho.